waxaad leedahay afartii kelmadooda nabigana bare calayhi salaatu wassalaam cadada qalqi wuxuu ilaahay abuuray cadadkooda wa ridaaa nafsi waxaa ilaahay raalli gelin kara wa ziinata carshi yaa carshigiisa waxa lagu xardheeyey lagu qurxiyey wa midaada kalimaati ilaahay kelmadihiisa intay fidsan yihiin cid xisaabi karta malaa'igta hadday kuwa samaawaadka kuwa arlada iyo inta u dhexaysa jooga hadday isbahaystaan yaa ma xisaabi karaan ma makhluuqii badday xisaabaan ma kuwii berigay xisaabaan ma kuwa la arkahayo ma kuwaan la arkaynin ma kuwa samadda adugu ilaahay wuxuu yiraahdaa subxaanahu watacaala malaa'igtiisa markay u bandhigaan siduu addoonkaygu u yiri iigu qora anaa ka abaalmarinahayo idan meeshaas istikfaaran la koobi kareen baad haysaa maxaa xigahaya adkaaru noom baa xigahaya oo maaragtay subxaana allah 33 alxamdu lilaahi 33 allahu akbar 34 waa 110 ku dhufo 110 ku dhufo waa 1000 idan marka waxaad haysataa istikfaar yaa fara badan iyo 1000 xasana ayaad haysataa naftaas haddii jirka ku soo laaban ay sidaa qabriga lagu geeyo naftaas iyo jasadkaas jannada unbay isku arkahayaan ilaahay hanaga dhigo kuwii jannadiisa gala bilaa xisaabin wa bilaa ciqaab xisaab la-aan iyo ciqaab la-aan marka ayuha alikhwa istikfaarta aan badino gafkeennii baa badtay oo ilaahayna waa gafka waa nagu ammaanay haddaan bini aadan nahay oo yihi kula aadama khataa wa khayru khataa'iina atawaabuun bini aadan kasta waa gafaa kan gafaa waxaa u wanaagsan u khayr badan kan gafkiisa ka soo laabta kan gafkiisa ka soo laabta marka ayuha alikhwa haddaanu nahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan aanu ilaahay ula laabano oon u towbo keenno aanu istikfaarta aanu badino adduunye ayaa maaragtay wax la mooday aan waxba ahayn adduunye aan waxba ahayn baa wax la mooday adduunye yaa diiday oo maanta inaga roonaaday dhilmaanyo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u qalqay namruud ayuu ilaahay u qalqay oo rabbi ku caasiyo rabbinimo sheegtay oo loo rukuucayo loo sujuuday markaasi sankii intay gashay maskaxdii bay ka qaniini halkaas markaasaa maalintii dambe wuxuu amar ku bixiyey nin walboo majliska soo gala ee isku daya inuu sujuudo ama rukuuco sujuudaada mehe rukuucaada mehe kabtaada aada sidatid siib yaa madaxa ku dhufo halkaa ku dhufo halkaa ku dhufo dhexda ku dhufo in ninba ninkuu ka kabwan yahay ayuu ka garaacid badan yahay marka madaxii garaaciddii waa xamili waayey qaniinkii gudahana waa xamili waayey madaxii baa bararay markaasaa wuxuu yihi hala ii sameeyo madax oo dahaba ama macaadin waxay ahaataba madaxii baa lasoo sameeyey macaadinta dahab iyo qalin iyo ayay maaragtay ka koobmaa soomaa markii loo keeno lasoo hordhigay addoon addoommadiisa ka mid wuxuu yihi seeftaada qaado yaa madaxan jar kana ku rakib buu yihi subxaana allah markuu seefta sidaa uu madaxa ugu dhuftay ayaa dhilmaayo garabkeedii seeftii raacay dase horta meeshaasay ugu dhammaatay dhilmaayaa soo baxdo garab la waxay u ashtakootay rabalcizati waاljalaal ilaahayow addoonkaagii kuga caasiyey baad igu salliday asna addoonkiisu igu salliday garabkaygii baa maqan go-ay oo magtaydii baan rabaa rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ilmaayo magtaadii adduunyay waxa dhex yaalaan ka dhigay
adduunya iyo waxa dhex yaalla waan ka dhigay dhilmaayo haye ma oranine hadday ogolaato ilan heli mayso garab heli mayso way fakirtay waxay tiri dhilmaayo tabartaada taagtaada intaa la eg adduunyo baaxadeedan weyn halkee baad ka gaari haddii dhibic biyo horteeda la dhigo waxay leedahay waa maxay baddan ama webigan weyninka badan ayay leedahay waxay tiri ilaahu adduunyo ma raba garabkaygaan rabaa rabbulcizati waljalaal wuxuu ayuu maaragta xadiisulqudsi ku yiri low haadihi اddunya tusaawi cinda allahi janaaxa albacuuda maa saqaa kaafiran sharbata almaa adduunyadan qiimiga ay ilaahay agtiisa ay ku fadhido iyo garab dhilmaayo hadday siman yihiin ilaahay dhibic biyo gaal ma cabeen gaaladan oo maanta dadkii meeshay ku nool yihiin jooga ayaa garan kara roobka maba kala daayaba dhibicda biyaha waa iska dareerta yaa mararka ay winterka ay leeyihiin qabowaha roobka ma kala qaadaba meelaha maaragtay muslimiintana kulaylka waad aragtay maha ilaahay kuwana jacayl uu qabo kuwana nacab inuu u qabo may rabbi subxaanahu watacaala waa caadil kuwana ilaahay kheyraad uu dhex dhiga batrool iyo gaas iyo adduun kuwana ilaahay wuxuu ku arsaaqay farsamo iyo waxqabad howl adduunye iyo adduunyo oo maaragtay la ilaaliyo marka waa in la isdhaafsado maanta kuwana maskaxdooda iyo waxqabadkooda iyo xoogooda ayagana maaragtay dhaqaalaha ay u baahan yihiin maanta annagana waxaa la arkayaa walaalkii inuu u dilo waxaa macno lahayn daraahim macduuda wax yar oo maaragtay aan qiimi lahayn inuu walaalkii u dilo ayaa laga yaabaa maanta haddii lagu dhihi lahaa walaalkaa dilay adduunyo qaado haddaad ogaan lahayd qiimigeeda ma aada yeesheen iska badaayo wax yaro marka ayuha alikhwa rabbi subxaanahu watacaala isagaana abuuray arsaaqdeennana isagaa haya cirka biyaha nooga keenay dhulkana badarka inooga soo saaray dhulka badarka nooga soo saaray marka maxaad ka baqi ilaahay wuxuu yihi ya bna aadam laa takaafana min diiqi risq risqi ciriiriyoobidiisa ka baqin risq waxa weye wax makhluuqu u baahan yahay hadda bini aadam haddaan nahay waxaan u baahan nahay badar iyo baad iyo biyo iyo bilcaan iyo baabuur iyo guri ayaa loo baahan yahay soo maha intaba ilaahay subxaanahu watacaala aduu kugu cir iyo dhulba adaa lagugu talagalay cir iyo dhul iyo waxa dhex yaalaba adigaas bini aadankaa loogu talagalay rabbi subxaanahu watacaala nama dulmin annagaa isdulmayno inaan dulamka aan iska ilaalino aan ilaahay u tooba keenno u istikfaarsanno marka wax walba xalkeeda kitaabkan laga helahaya iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam kaa inaanu ku dadaalno baranno inaan ku qanacno wuxuu ilaahay arsaaqna siiyey caafimaad maal awlaad iyo maaragtay ilaa aakhiri ilaahay qismigu ilaahay ku siiyey oo yihi naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati اddunya warafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaati liyattakhida bacdahum bacdan sikhriya idan inaad ku qanacdaa la rabaa alqinaaca kanzun laa yanfad ayuu nabigeena ku tilmaamay kamaa qaala nabiy sala allahu alayhi wasalam qanaacadu inaad ku qanacdo wuxuu ilaahay ku siiyey waa dhigaal yaanan dhammaanaynin weye kanz laa tunfad yaanan dhammaanaynin weye in la qancaa la rabaa in aan la fiirinin qofka walaalka ama jeebkiisa waxa ku jiro iyo maaragta heerka uu taagan yahay rubamaa inaa adiga ka wanaagsanta
rubamaa inaa adiga aad ka wanaagsan tahay ka fiicanta isaga uu habeenkii ku seexanaya walwal iyo walbahaar iyo murug meeshaad adiga aada calooshaada haddaad buuxsato cuntood cabto aada hurdada tan ugu fiican aada maaragtay aada hurdaysid